dhalinyaradii ku baaqday inay shir ku qabsanayaan degmada Beledhig oo arrintaas dhibaatooyin lama filaan ay ka yimaadeen ayaan ugu horeyn doonayaa halkan inaan baaq uga diro arrintaasi haddii aad dhalinyarada tihiin shirkii aad ku baaqdeen inaad degmada Beledhig ku qabsataan waxa dhacday shirkii inuu isu bedelay si kale indhihii dadku inay si kala warkeen in dadkii deegaanka ahaa ee ka soo jeedeen odayaashiinii iyo dadkii mas'uuliyiintiina ahaa arrintii ay si kala warkeen shirkii loo arkay shir qodaxi ku jirto iyadoo ay rag badan oo odayaala ay u hadleen si aan munaasib ahayn anigu sidaasi ka duwan ayaan uga hadlayaa shirka waxa weeye ragga waaweyn ee arrintaa doonayay inay wax ka qabtaan ee istaagay Beledhig cid aan jeeskayga ahayn kuma shiri karto taasi waa hadal afka weyn waxa weeye anigu taa mid ka duwan baan oranayaa habar jeclo markii ay garcada ku shiraysay waa tii article-ka la soo kala qaatay ilaa xiis ilaa safaariya habar jeclo wadanku ka dhaxeeya waa ku shiri kartaan waa degmadiinii idinka leh cid idin diidi kartaa ma jirto laakiin waxa meeshii soo galay wax wixii ka duwan shirkii waxa loo arkay shir qodaxi ku jirto waxa loo arkay shir axsaab gaar ah loogu ololeynayo markii indhihii dadka iyo tii aqoon-yahankiina iyo odayaashiina iyo deegaankii ka soo jeedeen ay arrintaa sidaa u arkeen anigu baaqa aan dhalinyarada u jeedinaya waxa weeye anigoo kamid ah raggii ugu horeeyay ee taageeray markii ay yiraahdeen fikir wacan baanu haynaa waxaanu doonay inuu aayahayaga ka shirno oo ka tashano raggii taageeray baan kamid ahaa imankana shirkii markuu si kale isu bedelay ee indhihii dadku si kale ay u arkeen ee shirkii loo arkay inuu qodax leeyahay foosto la soo duduucay oo dagaal markii loo aqoonsaday baaqa aan dhalinyarada u soo jeedinaya ee codsiga ah waxa weeye maanta shirka ina faraha ka qaadaan halka aynu ku dayno wixii kale ee danahiina ee horumar ee fikra ee wacan waanu idinku taageersanahay taasaa ka shaqeynaysaan shirka maanta halkaas aynu ku joojinaynaa oo aad ku joojinaysaan iyadoo arrintaydu aniga ay codsi tahay raggii gar adag ergada ku jiray ee cirka iyo dhulka dhexdooda la dhigay ee sidaa loo hayay ee aanu ku wada jiray aqalkii korneylka maxamed digaale reerkana looga wada saaray ee maalintii la soo baxayay uu shaami ka hadlay yiri nin furaashkiisii gaariga kala soo degay malihin in walba aqalkii intuu nooga baxay aanu galay ayaa maalintii dhaweydna yiri jeeskayaga degmadan Beledhig oo ku shiri kara cid kale kuma shiri karto miyaa laga baqayay markii taa cirkeenu ka dhexdooda leena dhigay anigu taan leeyahay taa way ka duwan tahay dhalinyaro shirkiisi kale isu bedelay aqoonsi kale u yeeshay qodax baa ka soo baxday dhibaato iyo xumaan baa inaga timi gacan qaad baa ka dhacay shirka maanta halka lagu joojiyo waxaan idinka rajaynayaa codsigayga inay iga aqbashaan qodobka halkaas aan ku dhaafaya qodobka xiga waxa weeye halkan waxaan doonayaa inaan ka cadeeyo mowqifkayga xisbi waa tii xisbiga kulmiye juhdi badan iyo tacab badan baa igaga jiray raggii lafdhabarta uu ahaa baan ahaa qofku waxbuu tirsan karaa waxbaan ka tirsaday xisbigii waxa dhacday kilib baan qabtay kilibka markii aan qabtay rag garbahayga ah oo madaxdaydiya oo tol ii ah ayaa iga hari waayay afartaa bilood godkaan galaba iga daba galay geedkaan fadhiistaba ila fadhiistay wixii halka camaalaq aan tirsaday way ka garaabeen nimankaa waan ka dhaqaaqi kari waayay kuwan garbahayga fadhiya kamida nimankaas oo uu hogaamiye u yahay wasiirka hawlaha guud cali xasan cali mareexaan maayarka degmada Burco maxamed muraad isuduwihii hore ee biyaha Rashiid Faarax Cabdiwaraabe labadii inan ee aqoon-yahanka ahaa magacooda la kala oran jiray Cabdixakiin Saleebaan Xirsi iyo Cabdi Abakar Yuusuf aqoon-yahan Cabdulqaadir Maxamuud Sugaal ragga odaydeer oo Faarax Dulin ragga aan tiriyay ninka la yiraahdo Suldaan Siciid Aadan Xirsi Cigalle oo kamida salaadiinta beesha aan ka soo jeeday lama taabtaanka ah raggaas weeye ragga iga hari waayay geedkan galaba iga daba galay markii ay sidaa noqotay xaqna aan ka eegay mujaahidkii weynaa ee maxamed kaahine iyo adeerka ahaa gudoomiye ku-xigeen ka ah maanta xisbiga gudoomiye ku-xigeenka koowaad intii ay oran lahaayeen nimanka wax la leeyahay
kuwii cid ugu xigay baa xagxaganaya waxa weeye arrinta maalintii clipka aan qabanayay waxay ahayd inaan la tashado isaga aan wax weydiiyo way igu simi weyday isaguna markii dabadee dad qolfaa meel ka kaakiciyo yiri u jawaaba oo taa isagu goosay oo iga goosay halka markii aan arrimahaas oo dhan eegay waxaan go'aansaday inaan xisbigii kulmiye ku soo noqdo muruqayga iyo maskaxdayda iyo maalkaygaba sidii hore aan ugu shaqeeyo oo u geliyo taasaan maanta halka ka cadeynaya qodobka saddexaad waxa weeye niman cuqaala baa jira saddex meelood marka laga dhigo raggaasi waa niman wixii loo diray iyo wax dheeraadaba qabta waa niman aad iyo aad u tirsan waxa jira midhar cuqaala oo imaamadihii reeruhu u dhiibteen la lumay saddexda xisbi qaran marba mid la hoos taagan oo leh intaasoo qof baan kuu soo diray maxaad iiga haysaa kimishir waxaan leeyahay raggiina xalaashee cuqaasha ahi war midharkaa waa kuwa idinku dhaadheera idinku garhka case iska qabta dee ceeb bay idiin soo jiidayaane cuqaashana qodobkooda intaasaan kaga tegayaa qodobka afraad waxa weeye baaq waxaan u dirayaa xildhibaankii aan adeerka u ahaa cabdirasaaq maxamuud jaamac cabdirasaaq ar waxaan leeyahay adeer xisbiga kulmiye juhdi badan iyo tacab baa inagaga jira haddii aynu camaalaq tirsanay rag madaxa oo inala dhashay baa jira oo inaga hadhi waayey waxaa jira wax badan baynu eegnay haddaynu maanta axsaab kala gallo dhoobigii hashaa magaceed kororsaday bay arrintu u ekaanaysaa kii tacabku inaguga jiray baynu ku qallashanaynaa arrintaa baaqaan kuu soo dirayaa waxa weeye wixii camaalaqee aad tirsanayso anigaa dhammaynaya oo xisbigeeda dhexdhexaadinaya taasaan adeer adigana ku leeyahay allahumma salli calaa maxamed qodobkaasina waa kaa qodobka shanaad waxa weeye ragaan saaxiib ahayn baa jira oo aad isugu dhoweyn kuwan maanta iga hadhi waayey kuwa aan islaa way kaaga dhowiin markii arrintani ay dhacday looma fadhi rag ka hadlay baa jira waxaa jira rag wax somalilandba ka baxsan nagu magacaabo nagu sheegay arrintaa waa la isku daba socdaa wixii aad sheegteen nin walowba waad caddayn doontaa ninkii abwaanka ahaa ee aadan tarabi loola jiray tuug tarabi ilaahay ka raalli ahaaday hargeysan ku ogaayay ayaa nin buu siyaasadiisii la yaabay maansuu tiriyo kelmad baan ka qabsanayaa kelmaddaas wax ka mid ah siyaasaddu sidaa maaha qodobka lixaad ee halkan aan ku soo gebagabaynayo innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun waxaan doonayaa inaan tacsi ballaaran u diro qoyskii iyo qaraabadii iyo eheladii iyo qaranka somalilan ee uu ka geeriyooday macallinkii qaaliga ahaa cali aadan geelle oo ahaa macallinkii dugsiga hoose dhexe ee dhoqoshay maadada xisaabta ah ka dhigi jiray shalayto isagoo 30kii rabadaan soo soomay sunnihii iidana soo tukaday ninkaas oo gacan ka xaq darani ay ku dishay magaalada dhoqoshay sida wararka ay nagu soo gaareen arrintaa saacadiisii buu dhintay waqtigaa uu dhintay markaad eegto nin ehlu janno ah oo ilaahay doortay buu ninkaasi u eeg yahay maadaama uu soo soomay oo sunnihii soo tukaday halkaa ciidankii amniga iyo odayaashii beesha ee joogay arrintii waxay waajibkooda ahaa way qabsadeen gacan ku dhiglihii xukuumadda gacanteeda lagu wareejiyey waqtigiisa iyo maxkamadihiisuu leeyahay marxuumka ilaahay waxaan uga baryaynaa janna firdowsa inuu ka waraabiyo baaqa anigu aan halkan ka dirayaa isagu tiisii buu dhintay waxa weeye kan ka dirayaa waxa weeye ninkaasi wuxuu ka tegey oo meesha u joogay qoys ballaaran waxa weeye ubad badan baa jooga waalidkii oo raqaya abuu u shaqayn jiray mushaharka yara uu qaato iyo dhaqdhaqaaqa lafihiisa ayuu ku hayay waalidkii reerkii aabihii kii hooyadii iyo ubadkiisii oo dhan xukuumadda jamhuuriyadda somalilan ilaa guddoomiyaha degmada jooga ilaa madaxweynaha heer qaran baaqaan u dirayaa waxa weeye in tacwiid degdega lala gaadho reerkii waxaan kaloo leeyahay guddoomiyaha waxbarashada gobolka togdheer xasan jaamac oday wasiirka waxbarashada cabdilaahi dheere cabdilaahi habane tacwiid degdega in lala gaadho qoyska mushaharkiina aan carruurtaa laga goynin